shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu helisay marwadiisa marwe xaawo ibraahim aadan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane jalaani nuur iikir oo kusimo uu ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan baarlamanka saraakiil iyo waxgarad mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha baarlamanka oo kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey safarkiisa oo uu kaga yimid dalka Kenya waxaana uu tilmaamay in halkaasi uu kulamo kula soo qaatay dhigiisa dalka Kenya iyo inta badan safiirada dalalka caalamka u fadhiya magaalada Nairobi kulamadan ay ku soo dhamaadeen guul mahad Allah leh waa soo aroorsanay safarkii hadda aan ugu dambeeyay waxaan booqasho ku tagay shaqo dalka Kenya oo laba qaybood ahayd qayb aan kula kulmay deeq-bixiyaasha iyo hay'adaha caalamiga oo baarlamaanka la shaqeeya qaybta kalena waxay ahayd booqasho aan u tagnay baarlamaanka dhigayga xagga gudoomiyaha baarlamaanka ayaan meesha isku aragnay iyo xildhibaanada u dalka baarlamaanka Kenya taasoo aan isdhaafsanay afkaar aad iyo aad u wanaagsan oo ku jirto darisnimo iyo wada shaqeynta lamada baarlamaan isdhaafsiga khibradaha baarlamaanka inaan isdhaafsano taasoo aan markaa si qoto dheer uga wada hadalnay xildhibaanada qaarkood ka mid ahna aan shir gaar ah yeelanay iyaguna aanu ka wada hadalnay sidii markaa labadayna dal xag siyaasad dhaqaale iyo xag amniga aan uga wada shaqeyn lahayn una xoojin lahayn xiriirka labadeena dal heer shacbi iyo heer baarlamaan taas lagu horumarinayo iyadana waa isla soo meel dhignay dhowaanna waxaan filayaa haddii alla idmo in gudoomiyaha baarlamaanka Kenya uu booqasho ugu yimaado baarlamaanka inuu muddada u furay kalfadhiga afraad haddii alla yiraahdo marka safarada meesha aan tagnay oo dhan guul bay noogu soo dhammaatay mahad Allah leh safarka gudoomiyaha baarlamaanka oo kaga yimid dalka Kenya ayaa qayb ka ah soo celinta iyo balaarinta iskaashiga ee xiriirka dhanka wada shaqeynta ee baarlamaanka Soomaaliya oo la leeyahay baarlamaanada caalamka